بعد واتي أن كسوق جني الحركات الباطنية المناوئة للإسلام وقار كمد اليزيدية القرامطة إنتا الإسماعيلية كواس أن كسر هذا وحلوحة وقدم بيون كسر هذا القاديانية. طبعا واتي نري حزب الجمهوري الحزب الجمهوري السودان كجرة إسقى ما دام وحقق السياسة إن بدن وبحي وحوين رنتي كتابان إنما لها لكن وحن رنهانتي حوج سارني قلدا الدروز هي القديانية حالة أن دول استاجنا عاونا بإذن الله سبحانه وتعالى الأحباش. ليش محايا لي فرق لنا دركيسان وقوة إن لا جوجا قار كاملة إن لا تكلام قار كاملة نقاشات يو نكتو لأن لا جوجي كريم runtii haddana siiba firqadan hadda aan caawa ka hadlaynaay oo midda iyada Denmark iyo wadamada Scandinavia aad ugu soo badatay iyaga oo runtii xawli ku socon watayna soo galeen watii niqaashaad iyo wuxuun marka la isla dhaafsaday marka way haboon tahay qofka muuminka ah inuu horta uu fahamsan yahay meesha looga imaanayo run ahaantiina dhowr jeer baan ku soo celinaa ahamiyada ay waxaan ay leedahay mar de waqti uu tagay waxaad arkaysaa mid leh qolada subxay ahaayeen waana runtii fursad inuu qofka muslimka uu fahmo gaar ahaan dadkeenan meesha jooga waxa aanu runtii aan la tukanayna waxaan la dhaqmaynaa dhan ay yihiin wax runtii caqiidadooda iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala og yahay. marka al-ahbaash qoladan waxay u nisba sheegataa Abdallah al-Habashi waa koox lunsan وقت أن سأسي فوقين وأي صوت ظاهرتي لبنان بي رنتي كسو عن بحضي إيضا أو كفا إذي سنسة دقالكي أهلي أها إيو دقالكي سكاي دحمري لبنان دقال مركو يماذا صاد قران كرتن وحو كتاقا وددك ودحال سيا بربر يا جهلي يا فقري يوحي لمده dadku markii muddo ay dagaal isaga jiraan wallahi alxamdu inaga xaqeena waxaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu gargaaray intuu dagaalka socdana dacwada waxaad moodaa inay karaar aad iyo aad u sii qaadatay karaar sareeya oo xawla ay ku socotay karaar qaadataad moodaa wallahi alxamdu madaaristi duruusti ducaadi wala dadaalay laakiin meelahan kale aanu ka hadlaynaa inaga nala mid maaha maxaa yeelay marka hore meesha waxa wadanka isla leh فرق كلا دوان حاجة درزي بجوجا ماشان شيعي رافضي بجوجا ماشان إسماعيلي بجوجا حاجة النصيري بجوجا حاجة حبشي بجوجا حاجة واحد جوجا الله مستعان قرمطي مركو هربا ضد معناها شيء سمايان هاي طبعا مركم حي كانتي قالوا بقى ماينورتي ماشا كوها إلا أن هدي أود وإسبير سطو ضد كون أي هندد يوم مركا ميل كسو ده جدا لقى ياباني وحون عرين كران ضلين كران مريكين كران لكن مركو قالوا بكلية مال المتحن تاي سو تاجان تاي وحوا جهود مركا ما سعانيس ماشي مركا دجالكي لبنان كدلاعي سكيها أها وهو رنتي دتك دحلسي بربر هدو نقولنا بربر مركا ميت يسوي كوصاليسن حقي infrastructure كا وماتيريالي دتك وحو بربري حقي physically وحو بربري حقي الله مستعان psychologically وحو بربري حقي لقالة أهان وحو بربري نظام كي بلشديد وحو بربري كي سياسات دين كان وحا وظهر وضم بونا الحياة مركا بربري هنا مركا ضد وحا صاب حي يوغو نوعا ما اسكس على مال وسعودة ماشي أين جري قفك بني آدم كان سي سبب وحا كبيرا دين جعيل وحا كبيرا إله دون وحا كبيرا مال مركا كتيرسو وصابت كانتي ما أنت إناد الدنيا كاتكو عرفتي أنت سو دينود أنت سو عقيدة أنت سو طاف نوال بوحو باريا بعد يقول وجرا إله هل دين هل نوشن إني راين ويوم وقت قفة بمحاكا دنبين دونا أسئلة ترى ضبضان أي دتكو إسوي دينا ومدة يو دحال سيساء أما با رنتي كانتي قفة بمركا مال إنو مركا حكا راديو مد با جدار كان يدربين إله أركي مد با إساقا إله إسو أركي مد با نوعا ما حبنت ترانك إله نما كرادي مد با والدك إله أركي مد با أوه إله أركي مد با مس عابدي مد با عرق العابدي مد با الله مستعان قرح عابد من المال كرادي طبعا بني آدمكو
runtii waxaa ku imanaya manduufsi iyo maan hehaabayo aanan fadhin maxaana keenaya maxaa yeelay waxay rabaan wax haga haddii ay meesha rasuul aanay jiri lahayn amaba waxyi ama diin runtii dadku meelahaasay marka mari lahayn waa sababta aan leenahay allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca ilaah xaqa xaq noo tus intaa keliya hay nagu ekeen rabbiyow haddana nagu arzuq inaan raacno waxa laga xaq inuu kuu muuqdo laakiin hawadaada iyo nafsadaada waxay jeceshaho ay damatay inuu intuba ay kaa weeciyaan xaqi iyo raacitaankiisa marka waad warzuqna itibaac wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba baatilna rabbow baatil noo tusi kadib naga fogey marka qoladan aan hadalka haddaan usoo laabto markii burburkaa uu yimid waa after mayidkii gaab weyn baa yimid oo xaggii aqoonta xaggii dhaqaalaha xaggii dhankii siyaasadeed iyo wixii lamida dadku marka waxay bilaabeen in dib loo soo nooleeyo manaahijtii ahlulkalaamka iyo tii suufiyada iyo tii baatiniyada maxaa yeelay meesha aad ku aragtid madhab baatini iyo madhab tasawuf meeshaad ku aragtid iyo manhaj ahlulkalaam meeshaad ku aragtid caqiida saxiixa ha sugin ilan ummadanu waxay u baahan tahay wax la taaban kara waxyigu wuxuu ka hadlaa revelationka wax la taaban kara ka hadlaa laakiin qofka marka maantana aad ku xirtid umuur haybiyaada oo isagu aanu la socon yani aad tiraahdo maalan waxaan may wax kala ka dambeey haybigu waa nasan ku ogaan karna aayadi xadiid wixii aayad xadiid aanay noo sheegin inaan maan ku ogaano ma haybigu maan laguma ogaado maskax laguma ogaado haybigu waxaa lagu ogaan karaa binasi aaya iyo xadiid iyo waxa culimadu ay ka fahmeen baa lagu ogaan karaa maxaa waxaan waa divine degree waa metaphysics waa wax naga baxsan waa shay laahuuti waxaan ku ogaan karnaa aayad xadiid waxaan ka hadlayn sooma waxay ila tahay waxaan u malaynayaa waxaa ila quman maaha maanka iyo meeshaas marka raad marka kuma laha dadku marka maxay bilaabeen baabu tasawuf baa la bilaabay kalaam ahlulkalaam markaan leenahay waxaan ula jeednaa dadka philosopherska ah oo iyagu falsafada mooyaan wax kale aanan ka fekerin iyo dadkii nimanka ahlu baatiniga intaa marka waxaa loogu talagalay ummaddan in la kala dhantaa axbaashta saad garan kartaan waa jamcu xabash xabashina waxaa la yihahdaa ninka ka yimaada xaggaa ethoobia alxabasha xabashina waxaa lagu magaca ninka ka yimaada xaggaa ethoobia haddaba firqadan iyadaa asalkeedu halkuu ka yimid ugu horeyn waxay u nisbo sheegtaan ama waxaa curiyey oo dhaliyo askumiyey nin lagu magacaabo cabdullaahi ama cabdalla alharari alxabashi labadaa nisbe alharari alxabashi magaciisa waxaa lagu magacaaba cabdullaahi ibn moxamed ashaybi alcabdari magaciisa waa sida ninkan waxa uu ku abtirsadaa ama u nisbo sheegtaa meesha harar la leeyahay oo ah magaalada harar ee ku taal xagga ethoobia xaggaabuu ku dhashay wuxuu ka soo jeedaa qabiilo la magac baxday ashaybani oo isu aanayso isu tiirisa xaggaa iyo reer bani shayba oo ah qabaa'ilkii carabta ahaa usuushooda carab ay tahay meesha degay marka wuxuu yidhahda asalkaygu meeshaasaan ka imid saasuu dhahaa waxaa la sheegaa miyiga harar inuu ku bartay luqada carabiga iyo fiqiga shaaficiga wuxuu arday u noqday saciid ibn cabdiraxmaan annuuri iyo asheikh maxamed yunus buu arday u ahaa oo ma aragtay waa nin ma aragtay jaamic funuun yani rag culamo ah ayuu runtii u xeraystay kadib buu wuxuu haddana u boqolay xagga iyo mantiqo la magac baxday jumma meeshaas wuxuu ku bartay ama uu wax ka aqristay wuxuuna arday u noqdo xer u noqday u xeraystay asheikh ashariif kadib waa meeshan marka meesha uu bilaabay inuu la yimaado afkaartan qalooca uu ku jiro weecanka uu ku jiro markii wuxuu bilaabay dariiqadan la magac baxday atijaniya oo na soo martay turuq suufiya markaan kasoo hadlaynay buu bayco la galay kadib uu ka tegey wuxuu aaday mantiqo kale oo daawi lagu magacaabo oo manaadiqda oromada ay degta ah kadibna wuxuu ma aragtay aaday tuule aan kasii fogeyn meesha ayuu marka tegey xaggaa wuxuu kala kulma marka sheikh mufti ah ee lagu magacaabo asiraaj ninkan marka arday wuxuu ahaa asheikh yuusuf annabhani buu arday u ahaa waa ninka qoray kitaabka lagu magacaabo shawaahid alxaq fi listigaahati bisayid alkhalq waa nin isagana runtii qalooc uu ku jiro kitaabkan uu qora wuxuu muujinaya inay bannaan tahay
إن رسولك صلى الله عليه وسلم لكعسن كرا أو لبري كرا أو لعابدي كرا لأن الاستغاثة هو عبادة نينك أبو كبرت حديثك كذب وحو آدي قلت رح تجي برشاد علمي تصوفك وهنا هذانا مركب على طريقة وقالي التيجاني هذانا حكى الطريقة الرفاعية ولا طريقة كلا ضرم وإن صامر الانتوا كذب وحو السفر حقه سوريا وكتجي هذانا حكى هذا لبنان بو آدي طبعا انت مركو آدي انت صمرك وريجي هذانا وحال الشيء طبعا ومركب وقارما ومركو طبعا وكتجي حقه أفريقيا سنتكو مركب مالها وآدي وسي شيغان طبعا ولحدني سجالك وحي لمده وعلى شيغان مركه اما اتباعه رجع اسغا راعسن وحي شيغان وحو يمد كو سغال بل كونتنكي وي meelaha hadda aan ka hadlayno kadib markii uu fitan aad u tira badan uu kiciyay isaga oo maagaya dulminaya meel kaga dhacaya muslimiinta aqeedadooda wuxuu xiriir gaar ah u la sameystay oo la yeeshay xaakimkii Indraji isaga xidid la ahaa Hayla Salaasi gacan saar buu la yeeshay wuxuuna dagaal ba'an ay weerar cad oo qayxan oo ku qaaday jamciyaadka islaamiga ka jira xagga al-Habasha oo iyagu markaa u taagan oo u helan taxfiid al-Qur'aan wax alla wixii madrasa Qur'aan oo ummadda diinta lagu barayay oo Qur'aanka lagu baro dagaal la galay magaalada Harar fidnadu ka dhigay fidna waxay ahayd taariikhdu ay xustay 1367 هجرية أو كوبا 1948 تاريخ ولا يقان ولذلك علماء وحبي يقان ذاتك الدعاء ماشى الدجان فتنة كلاب بيقانا فتنة كلب بيقانا فتنة بلاد كلب بيكون مجعوان في النادي ماشى كان عادي كذب واتي وحا لصف تبع نينكا أندراجي أي وحا صبح الحكم وليري مدير المدرسة نينكي هيستي كأها قدوميه إبراهيم حسن واتي صدح إلى 20 سنة حبس اللي حكمه كدمنا إلا مسافري وطن كلا قصار وحكدم بيسج هذا وانينكي تحفيظ كذا كباري لها مدارستي إسلامية هاي تحفيظ القرآن الكريم نينكي أجاسمي إسكو أبابولي نينكي دتك كيني وحبري بو مركب الدعوة كتاعي وأنا لا صفتي حاكمكي حاجة جوجي طبعا وكفى إذا سنة حريرك حيل سلاسة مركب لا لا وعلى كل wadaadkii waa la xiray oo 23 sano lagu xukumo markuu xabsiga ka soo baxan waxa la masaafirisa loo raacayo waxa la sheegay marka wadaadka kan ee lagu magacaabo Ibrahim Hassan ee 23 sano markuu dhameystay kadib wuxuu ku dhintay meel lagu magacaabo Juuri waa markii la masaafiriye kadib xaggaas uu saga dhintay waxa la sheegay haddana Abdallah al-Harari ninkan hadda aan ka hadlayno nidaamkii markaa jiray rejiimkii jiray xala salaasa markuu aad iyo ula shaqeeyay buu rag fara badan oo ducaada rag kutuba leh oo dacwadan u helana u soo taagnaa iyo mashaayikh fara badan buu runtii xabsiga dhigay qaarkood marka waa tii hadda saad garan kartaan rag badan oo waxa jira culimo oo ilaa hadda Sacuudiga jooga oo Masar jooga oo meelo kala duwan wadamada muslimiinta jooga oo asalkooda Harariyiin ay hayeen inaga xataa wayna soo gaareen oo runtii fadli weyn way nagu lahaayeen rag fara badan oo dabcan marka Harar la joogana waa magaalo runtii madiinada ilm baa لغة مركا لو بحو تفسير كمركا لو بحو بلاغدي نحوه صرفه فنون الدين تو اول بدغي رجي مركا waxaan dhan dadka baray ayu ninka wuxuu ku qaada fitna بلاد كل marka leeyahay taariikhdu ay xusus waa sidan nin xabsi dhigay miduu eriyada wadanka oo ka saaray miduu baxsado lug aan iyo wixii la mid ah dadka soo ka dhigay ninka waxa ka dambeeyay marka waa ninkan hadda aanu ka hadlayno firqadan ahbaashta leeyahay marka leh طيب كدي واتن علماء وحي أبحيان الفتان أما شيخ الفتنة كيف إن بدنها هذا اللي أبحيان مركا نوعه أسل كيس الدين الدعوة بأن لا تسكرين رجيم كمركا دشانا قعن صار له والله شقينا وحنا مرة بتاجيها إن دعوة وويقة وهر استاغ وأنا مركا قمن وحي هاتبا مركو لبنان يميد بقدر هضانا لبنان مركو يميد buu ka daray wuxuu bilaabay wax alla wixii xaqdiya iyo xaasidnimo ah iyo fitna ah iyo la dagaalamay aqeedadan islaamka ee saxiixa isagoo faafinaya shirki madhabka jahamiga ah oo soo maray al-jahamiya marka la joogo baab sifaat waxaan ku soo marnay firqadan ran hadda aan afka ku dhufanayo waataan lahaa kitaabkun uu iswataa hadii aadan
موسوعة هدادا إلا هذا مركان تيجانية اللي هو نسود الاستاجة هبين دنبان وحكلا إن قبل الرفاعية هبين كلام هبين دنبان وإحنا إن قبل الجهمية هبين أنبان شرح إن مركا الفاظ مركا إن ضل مرة كو خصبانها محايا اللي بيحوان سود دمي وحي هاتبا جهمية وفرقة طول ديجيسة أما أنا شقق لين صفات الله جل وعلا تمام ياش إليه سبحانه وتعالى اسكو شيء يفكر كي إرجاها إرجوه وامحي وأنه إيمان دون أيضا فحفاصا ونصامر هبين لما دول استاجنا لا يضر مع الإيمان كفر قفك مرة الضوبة لا إله إلا هو يراد وحود دونها قصته فكر كي جبري قفك خصبي زينو قاليا أنا مش كلام إله بقى خصب أنا محن كي لا وكلو فكر كعبو بالله فكر كي تصوف كي باطني كي شيعة صحابة الله عايو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو لو تهمه إني أمرك إلهي مالك قد عاد هي فتاوى أهار الله أركن انت لبنان ما أنت أنا وحا أيان دراءة إن ضد فربضان والصوماليا أي فرقة أي كجيران أو يوربنا للجوغة أو رنتي كل الدودي ولا شو تاجن ضد لا شو تاجن نين كان مركو حياه أمين سوى أمحي صفات الله مالك قد عاد ومرجي وجبري ومتصوف وباطني والرافضي وأن صحابة عاية سجارا وعينية محي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوله إلهي أمر كيسي مالك قد عاد نين كان الحبشي وحكو قوليستي ضد فرب بضن أو إساق الله صفا إنه صار أبو بري متعصبين أو مسلم وحي يقانان قال إيه كده وفيشون كده مسلم يقانان قفكي عقيدة ديدا أما شيخ خود عبد الله الحبشي وحو آمين سنين قف كان آمين سنين وما ترسنا ومحي مركة محي آمين سين مسألة الإرجاء باب الإيمان مركة للجوغو إرجاء آمين سين وماشي مرجي باب أفعال الله مركة للجوغنا وحي آمين سين مذهبك أما منهج وحي آمين سين عقيدة جبرقة مركة للجوغة صفات الله نوحي آمين عقيدة جهمية المعتزلة انت وانصار شرحنا محا جهمية محا معتزلة محا جبرية محا مرجئة انت وانصار شرحنا ولا لا وحنا دافين ولا ما ملك التسجيل كأقابل السن إيميل كوكو صدرين وحضو باهان تاي فاهين سيد فهمتين لأن يقصوا ضوضوبة إرجوه وحوي قفك مرة هديبة لا إله إلا هو يروح وضان وقصان كذا هدو الزنا يستي هدو خمر عبا هدو ماشان كذا هدو كذا هدو كذا مهمة هم بيلي جبري صوم هو خصبنا هاي قدر بابي وضع محن كي لا وكلو صفات الله إن ماشان دونا كجد عيا وحيد مركب قلادهم يسكت ضيق المركب الباب والبواسيل إن منك جابها المالها كو أركتان وكلا قلاد المسيحيين الباب والبيكوس وجراعيا لبنان مركب الجوج سوريا waxay wataan broshariir yar iyo manshuuraad oo ay wasacayaan iyagoo dadka marka ugu baaqaya caqiidadan khaldan Abdul Habashi oo dadka marka u sheegay waa meesha hadaan adiga aadan dacwadii tabliiq garayn aan dadka gaarsiin wal gaarsiinayo caqiidada sax hadaan ka turjumin oo aan waatan adna wal soo gaarsiinay marka waxay gaartay hal anaga taani quruxda badnayd oo saxda ahayd in inta la fariisan albaabada u xirano albaabada in loo soo garaacay noqoto walaa khuruujkooda bari aan isabangar joogay iyo xeeqsan soo galeen oo kutubna wata murmayana dadka marka u sheegay afkaarta aan sheegi doono marka aan gaarno afkaar mu'taqadaad marka way wareegayaan waa niman Lubnaanis waa Suuriyaan firqadu Ethiopian way ku yarihiinba cadaan oo dadka meelahan ku soo islaamay intuu xeeqsan dad Soomaaliya u shaqeeyay ogaan doonta biidillah subhanahu wa ta'ala raga fakarkan كذب بيوحى كمن نزار الحلبي نين كان وحى الشيخ إنه نين كان خليفة وأها نين كان حبشي جمعية المشاريع الإسلامية أو معركة Islamic Project Organization أو كوي المالها أنا وهو إساق مسؤول كأها نين كان وحى السيا تايتل كسماحة الشيخ بيقانا محايا دار الفتوى سماحة الشيخ وتايتل لسيقف مفتقة ماشي للجوجة مفتقة بقى على سماحة الشيخ يسجل مركو ديارين ولذلك وطن كمركو حد جوجي حرب واحد جوجي طبعا نين للي حسن خالد أو مفتئها جدار هذا يحيي كل جين دربية يحيي كل جين لا للمفتي حسن خالد الكافر نعم للمفتي نزار الحلبي وحيكو قريان مفتقة وطن كأه وضدكو أي قانان وحاجة إيه اللي حجيه السنة أهل السنة اللي حجيه وحيلي ننكا مفتي من نقول كروا كافر كان أيام مفتي ما له يكون زعجل آخر كان مفتي عن أي شيء ولا دليل
ونزار الحلبي وتيل الدليل وحيليهن رج أو ماشي مركز الله بحو يعني ضد مغمضة أو permanent personalities ولا يقان سياسيين مركز الجوجة ضد مغمضة إليهن وحكم ذا مثلا أما واجع هريسي وحكم ذا نينكي أيديه جرين عدنان الطرابلسي أو نين يسوي MB برلمانك رنت حلمانك وحكم ذا نينكلا يسجن الصاشر رحي وبرلمانك الصاشر طه ناجي ومركز الصاشر يكون يتضارب بقول عضبه هلا برلمانك وحكم ذا حسان قرقيرة أو يسجن وحو نينكي هذا اللي دليل سماحة شغلة لها جمعية المشاريع الإسلامية هي ستيب وحو كحجان نائب فايس وحكم ذا كمال الحوت وحكم ذا عماد الدين حيدر وحكم ذا عبد الله البارودي انتوا وهرج رنتي ماله وين هيستا وحياه فربضنا مؤسسات فربضنا قعنت كهي رجاك فربضنا ابحاثي ريسيرشسكي waxa alla wixii lagu talagalay gacanta ku hay khadamaad iyo service farabadana bulshada ay u baahan tahay gacanta ku hayo waxaan horay u soo sheegnay minority wada firqad bayo minority xalay qadiyaniid waan ka soo hadalnay wujuudka ay kulay marka ingiriiska la joogo oo muhandisiin farabadan iyo rag farabadan dhaqaatiira iyo lawyer farabadan يدد فربضنا معلمينا قطاع المركز جشيد وحاسلاده مركز للجوجة القطاع التعليمي مركز للجوجة academic sector كمركز للجوجة بقول كي وتدوات سديتني يا نقناي في حين ذاتك السنة أهل السنة هذاك عقيدة بقول كي ينير نقناي على قولنا وحي أوجه مهددين إنيهن إن خطر يكون جيران إني بابي كران هالضبا ويأذكت إنه يرامي قدياني معني أما حبشي معني أما صار إنه ذاتك يسوق فكر متحن ماشي إنه لين عد صفر سنة سمر كملها لكن مركو دخترك يكون نقضه مركي إنجنير كقولي ليس يكون نقضه كي وضد كوس سمير مركو نقضه لاير كي الدعوة ولا تجي سمركو كون نقضه معلم كي سكول كحسابتي فيزيكس بيولوجي جديد مركو نقضه وحو أود ولا يسوق إسكت جاية إنه علم كلي وحكوش شيء بقول كي بهال فكر كيس إنه حاجة كوجو صوتور أنا صوبتك أنت قليها جامعات كإنه دكتة يرى كمالها نجوجا يوحي يقصنا فكر نوعا ما خلطان كل شيء قري المعلم كان نودي أسل كيس وكردي ومسلم معلم كان نودي أسل كيس وهندي ومسلم وكله ما أوجا مركز نين كان هندي هرتاج إنه قدياني فكر قوته إنه نين كان لبناني إنه فكر حبشي قوته إنه فكر درزي قوته يعني إلا ما أنت قنوات كذا كل برارو كرتا قناة فضائية أما ساتلايت كذا غير إن كدكتونات المساجد واسكي إلى كرتا بل معلم بيولوجي كودي بل اسكي إلى أو كيف يسكود دقي اسكي إلى المركو فلسفة كودي اسكي إلى وعلى اسكود ديان حتى حسابته مركو كودي وحدون الجوجلي وأنا صوبتك أنت حتى صار جران كرتا وإنه إيمان ضنتا مركل الجوجا مسيحية كريستيانيتي مركل الجوجا لما evangelization كأوجوجا تبشير ضدك إني مسيحيين oo islaam ka saaraan waxay sheegaan markay afrika iimaalaha u shaqo tagayaan ma dad macnaha diin faafis u socda ma kuma shay diin ba faafinayna kuma leh laakiin waa nin ma aragtay sooro dadka caawinaysa waa dhakhtar meel uu furan yahay waa nurse waa nin ceel qodaya hawlo kale waa dhakhtarki intii meelahaas laga soo galay kadib ba fakarka si tartiiba loo gudbinayo laakiin daaci baan ahay dacwo kaliya wata way adagta maxay hawlo kale jira ولذلك waxaan xustaa bari jaamacad wadankana oo la yiri muhaadara u tag oo qaybta diimaha ayaa meesha qolada ardada muhaadarada marka aan u jeedinayo ay ahaayeen arday master degree iyo PhD oo dad masiixiyiin oo ducaada marka meesha fadhiyay intoodii markii intaan muhaadarada aan bilaabanin ka hor baa taariikh bilowday nin aan dhakhtar ahayn ama engineer ahayn ama lawyer ahayn ma jirin waxay hadda baranayaan waa master iyo PhD oo wixii diintooda ku saabsan marka ninkan marka wuxuu ku shaqaysanay maaha diintan oo hadda baranay maaha masterka iyo PhD hadda uu qaadanay maaha wuxuu ku shaqaysanay waa dhakhtarnimadii wuxuu ku shaqaysanay lawyernimadii kadibna irsaaliyaad tabshiiriye u baxayaan xagga ay u baxayaan hadda muxuu baranayaa Judaismki Old Testament-ga la fahamsiinaya muxuu baranayaa Christianity-gi waxa la fahamsiinaya New Testament-gi sharixiisu baranaya buugaag buu diyaarinaya wuxuu baranayaa comparative religion muqaaranada diin buu baranayaa hawshan marka hawl u taalmaa waxaan wax weyn ma laakiin muxuu u socdaa wuxuu ku shaqaysto wata sadarteed waa mamnuuc ninka mubashirka inuu dadka la soo hor istaago diin baan inay wada isagoo aan takhasus kala lahayn takhasus mishaar u qaato leeyahay idan meesha aan leenahay waa daruuri dacwadan say u kaaga cado oo noocan ma u hanqato meeshii la rabay u gaarto u baahdo waa daruuri runtii inaan albaaba kala ka soo galno albaaba in noocan ma
كل جن اللي ما أردت كتاب الطلاق ولا أقرنا كتاب النكاح ما هنا هنا دتكو هنا وحبرتان وجامعات وحلقة صوبرت والله يرى ما أردت وإنجنيير للنقضاء ودخاتير للنقضان ولا جيدا ودتكو مركي برتان كدمنا دعوة هذه أتفهم سنتها سيد اللوت كذا سيد الله صوم سيد الله صلاة أتفهم سنتها أنت عقيدة صحنا مركز صفافين كرتا مركز ولا نبغى وأنا مركز كلي اللي جيلي كرو ولا لقي حتى هذا درجته ما نهيت حتى جماعات كان ما أنت جرا جماعات كان ما أنت جرا هذا إكزامبل الأسوة قاعدنا طبعا واحد كان لنا جماعة إخوان مسلمين ماشي إذا مصدق إنه نكسر هذا الوحيد لكن محربة تنظيم أهان إنه حون أنت المان ما أنت بوس كمان أنت يسوق جارين مصر إني مجراه وقبتين هجانكي ودن كمركا كجري إسكما إيمان محيا لي مركا الله بحو مركي سندكيتس كان الله بحو لمك الله يرضى أما ذاك مهندسين تا أما أطباء أما نقابة المهندسين أنتوا بيجا ولا نقدر آخر كمركي infrastructure اللي بنية تحتية مركز الصاد السي أكاديميك ذاك الصاد السن وقت ما أنت هالمرليري موضوع سياسي مركز قوانين يعني واحد ضروري مركز إن قاعدة الشعبية لهلا سدين كانوا وقفا فتاوى ضروري موضوع عصا موضوع إلى بحوي هذا ماشي كسر اللابتوب لمن كم حال الشيء مركز وحيد بالله حتى إن أي تحقيقيان كتبت تراثك تحقيقي محل جيدا كتبت ومانuscripts باجر لأن العلماء ده مركب قرآن مجرين آلات كان ما أنت حلقات طباعية كمبيوتر وركيس إسكابات ده مجرين ولا فرتي سكو قرآن مركب حاجة جامعات ك مركب لمرة ماستر ديجري PhD مركب لمرة حتى فترة تخرج مركب لمرة وحاجة مانuscript باجر تام مخطوطة وحلقة مجعوة أو الشيخ وجعنتي سكو قرآن أرضي بمركب الله دري إنه ديبو مراجعيه كدمنا وسكروتنايزنج كسماي وصحام محا خلدان محا صحصان كدمنا شيء ونقو كتاب مركا علومه مركا اقرسان كره iyagu marka waxay bilaabeen kutubtii turaadka inay gacanta la galaan iyagoo raba fakarkooda ashcariga ah marna jahamiga ah marna mu'taziliga ah marna baatiniga ah marna raafidiga ah marna irjaa'iga ah marna jabariga ah marna dhan walba uu ka khaldan in umada marka galiyaan طيب maxay sameeyeen marka xitaa marka kitabta tahqiijina waxay leeyihiin قال الحافظ العبدري في دليله أو كالا كرا وحي مركز ضدك مودة يعني الحافظ مركز اللي مشاهير توسد الحافظ من حجر الحافظ من كثير رجع سد المركي ومان كاجو حاجة سؤالية لكن ما يوحي ولا جيدان الحافظ النووي إيمان يوحي ولا جيدان شيخ خذي ولا جيدان مركز عليه مركز كتاب الجوهر كانوا على هذا الحافظ بايري من حجر بايري الحافظ النووي بهذا الكيري فهذا الكاسن الإمام النووي شقاكم له ولا وحن شقق لهم الإمام من حجر ما شقق لهم الحافظ من حجر ولا أي واحد من الأئمة الذين يعتد بهم أن شقق لهم يقوم بمركوته طيب هذا الكلام يضع خصوصا إلى باهن وحاربا إن ندول إستاغ محيدتك كآمسين هذا نسلق قرني إن فرقة فرقة جرتا أي تهاي ما أنت لا تعبان كرت أرك كرتان محي آمسين وحي آمسين هرتكو وحي شيكتان نمك أحباشتا مذهب كشافعي إنه مذهب وياه مرك واضح فقهه يمرك عقيدة أي مرس لكن مذهب الشافعي قلنا شققكم له صفات كإلهنا السيد دوران بكيالا يجوا هالبيك لو وشوا هجاء أني أدجين جارهان مسألة الاستواء ماشي دورنا كلا دعان ووحي لفكريهن منك معتزلة ذا جهمية ذا مسايشان أدم وصل دول استاج وحي آمن سيد أم أي شيطان أم حبيش أو شيطان إن جبريل عليه السلام وإسقى أما مضي وسميه الفاظ القرآن كريم كا وإلى حقي أنا كإيمان جبريل بس سميه بولي مركو حلين قرآن كما هذا الك إلهي ماها لكن معنى أهم بقول هي أرادا أن أقرنا إن ما أنت قاف القرآن المجيد يعني فلان يمتع أن لنا جبريل بس سميه وحنا أركع وقرأ كتاب كي إظهار العقيدة السنية صفحة شب قريب سجاشنيكو لما كان مركب فكر كاسي أمسين وحي كله أمسين في مسألة الإيمان مركب المريو باب الإيمان مركب المريو باب الإيمان مركب الجوجو وفكر كود ومرجئة وجهميو وبمعنى وحي ليهن قفكو ومؤمن حتى هدو صلاة كتبه يسائر الكان مرة بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مشكلة ملا إنك ضد هذانا المسلمين هرنتي وحلا قفك بمالو سنفيلين لمن قال لا إله إلا دخل الجنة كري وضدك أن لو قينين وأنه كعمل فلا إله إلا الله لا إله إلا الله وحي لها مقتضيات وحلو عمل فلا إيه وحي لها بريال بين لها وح بريال يعني كلمة لا إله إلا الله إسكت سوق قال ما لا إله إلا الله
وحيل هذا مقتضيات صلاة هذا لا إيمان وصومك زكاة لا إله إلا ما شقينش في نفس الوقت بريال بيلاده اسك إلاله يقول مركو حيل مرحضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يله يوسن تكن يوسن صوم يوسن صلاة يوسن حج زنا دون هالصمي ومسلم وعقول الدليل القويم صفحة التضوات كأك بغية الطالب بيج كونتينيو كوات كأك نمان كان مركا وحي آدي وحي ليهن القوانين الوضعية man made laws دساتير تاني بين آدم كسميستين بي رنتي آدي أي سهلا أنت وحي ليهن والله حكم تمي كرا ضدك والله حكمي كرا هذا لو حكمين إن ليهن من لم يحكم شرع الله في نفسه يعني شرعي مركا لي إلهي مركو ليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مركو ليه معناه إذا ما ضدك إن لغو حكمه وقعن لك جوي ولا جل أرنتها لك أيضا ما أيضا وحي الله ده نفس هذا أنكو حكمي أما قفك هدو مر لا إله إلا الله مرء هذا في حياتي أنتو نولي ومسلم مركا كتاب إلهي بالو عمل فلا يائي دستور إيو ومدى وحن هولان يا الماء مركا قال لنا نوعا ما سيون أودي دان دستورك إلهي وسود جي اسمه أوجين مال بدتك قالوا مال بمرجع يرجع كسوق جلسة قال مال بحبشية كسوق جلسة لما يقان بعد كقدر كمركا للجوجو وحيليهن إلهي سبحانه وتعالى إسجع عاوي نك كافر كأنه كافر نقول إسجع كعاوي هدي أنو إلهي عوامات أنو سيان كافر ككافر من نقدر ولذلك قال هذا آمين سن مسألة جبرية نين كميدا أو الله أركي يسوي زنا كفردي أو شيخ هذا مركي لين بيرجعتك فأنا مجبور وأكون خصبان هاي عن قدر بقى كثولي مركي فكر كاسي أميسين نما كان وحياها كلا أو ضدك أي أدية يقول وحي ضدك أدية يقول بوريان إني مركي تكنيان وحاجة قبورته إن قبورته الاستغاثة لقى ضلبه عيد لقى قاته عر لقى قاته إيجا لو يديس أولاد وحول لو يديسته waxay banaynayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala geyrkii illa man gali karo dhagxaanta in la barakaysto iyo howlaha aan loo fadhinaad garan kartaan hadda u laaba kitaabka ad-daliil al-qawim 173 buqat at-talib ma aragtay safxada 8 iyo sahih al-bayan content 7 iyo 60 iyo 2 page ka inta marka dib ugu laab ولذلك وحين قف كيرا أعوذ برسول الله من النار قف كيرا إلهي رسول كيسا النار تكمن قال قف كيرا وشيء شرعي بينه حكم الجمنة إن رسولك لما قال حكم الجمنة أوليدي إن والله كعسان كرابي ليه نمان كان أحاديث الضعيف كأ يكون فابريكير كان لدجي موضوع بيئات يحوجيان مواقارمة هدي مذهب كودو أحاديثنا يوافق صنت أحاديث الصحيحة هدي مذهب كودو أي دقين يسكسه جدا وضعيف درجتي كربحيان كتاب المولد النبوي بالأقري وحي كقرن وحي آدي يدعو عيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قارهان معاوية ابن أبي سفيان قارهان السيدة عائشة رضي الله عنها وحي دران خالد بن الوليد وعليه قال لي علي بن أبي طالب كهر تمد وإنسان أقنها أنك حقيقة السنة والجماعة هذا النهاية دقال كده حمر صحابة رضوان الله عليهم يقوتي جيلي يدتي يسجهر يمد waxaan ognahay dadka wixii ka dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo deeray inaga ina ka dhaxalin iyagu xilin qoladii ka hortimin Ali ibn Abi Talib la dagaalantay ee meesha ku dhintay waxay ku dhinteen miitatan jahiliya yaana waa bimaana dhimasho oo gaalnimo jahiliya marka lagu yiraahdo waxay aad uga digaan qofkii saxaabada caaya in la kufrisiyo qofkii haduu saxaabada caaya lama kufrisin kara beeleen gaar ahaan Abu Bakr iyo Umar ilan aad bay waata nimanka shiicada waxay u yaqaanaan واتي يقانن جبت طاغوت قرآن كما قال لغو شيء الجبت والطاغوت لبا سنة أبو بكر عمر بالولا جيدا بينها يجو مركا يجو كرة لجنين نمك الشيعة رافضة ويسود ويان وحلقة الشيء لبدا صحابي رضوان الله عليهم نمك وحي المسيح إلهي سبحانه وتعالى كان حكمة إنه سنو أبورين رسوشان حكمة إن الله صادرين قفكي إلهي فللكيس حكمة كحرا ومشرك بليه يعني صار قران كرتان حتى فلاسفة عادية أي واحد هان out of the blue وحكوين ملاي out of purpose نمجره يعني فلسفة وح يعني جدال هين ملا كون كان فالكستو دعي يجدوا ليه
وحفل كسود عاي يجوا مركز إله سبحانه وتعالى للجوج إن اللي يراهضه أي الله سبحانه وتعالى actions كيس link to wisdom إن النقطة ممنوع إن اللي يقول حرام حكمة وممنوع رسولك والله صدر حكمة قدم بيساي ملا هذا روح إلى قاعدة لا صبحين روح إلى هدي فعل والبو إلهي كسوف له لا حكمة ذايو أما حكمة لقول حرام قف كيسيدا سمي ومشرك بيلين وأنا أرين خلطا إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى حكمة الله وحوما سمي حكمة باكو جرت محارس إن شاء الله صدري إلهي سبحانه وتعالى محوسيدا وسمي نيوان كان وحي آديad u gaalaysiiyeen dad fara badan علماء المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية way gaalaysiiyeen وانا قفك حبش النقانة شروط ugu horeysa waajibaadka ugu horeeya gudan waa maxay inuu meel kaga soo haray ibn taymiya u gaalaysiiyay ko waxay aadiyad uga digaan kutubtiis al-imam al-dhahabina way gaalaysiiyeen waa khabiith bilay waxay kalo sheegteen maxamed abdul wahhab inuu mujrim aha dhigicab aha gaalna aha bi amsi sheekh maxamed nasiruddin albani agtooda waa gaal bukay sheekh sayyid sabiq agtooda gaal bukay waxay kaloo sheegaan in uu ahaa nin majuusi ah oo kaafir ah saas way dhahan waxay aaminsan naam waxay kaloo aaminsan ustaad sayyid qutb inuu ahaa min kibaar al-khawarij kuwa weyn oo hadana gaala ah oo gaal yani fi dhanni inta haddaad rabtaan inaad ogaataan waxaad u laabataan mujallad manaar al-huda al-habashiyya cadadkeedii saddexaad safxada 234 bay ku sheegeen النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل المولوي انت بالاركه دي بقول لها توحي marka ku sheegana dogateen okay hadii dadkii ahlu sunna wal jamaa على اختلاف مشاربهم اهل السنه والجماعه هديبه ماشي ay kala dhaceen ibn arabi maxay ka dhihi doonaan waxaana ibn arabi ibn al-arabi waa ninka toosan alif laanta midkay ku jirto ibn arabi midkan alif laanta wadan ونيكي لها مذهب كان وحدة الوجود ونصامر هي نظرية الحلول كاتحاد كان نيك آمنسن وحكست قوم كان يال إله بكل حجر مثلا على هينا وكلا وما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا أي مجرو إضافار مجري إله ونويه قال هذا آمنسن نحي إله بكل حجري قبان إله حمام كل حجوجا بقبان ها فكر كاسي آمنسي هي مسألة مثلا مسألة أنقصها هذا نروح جاري اتحاد كيف حلمده طيب ninkan marka waa nin culimada runtii meel kaga soo haray ibn arabi inuu gaal yahay wala ogi ha qaarka iyaga la mid isaga hadalada maxaa laga soo wariyay wuxuu leeyahay aniga arkaysaan buu ibn arabi ilaah baa igu dhex jira mar hadduu ilaah igu dhex jiro subhana sha'ni ninkiri way ana hufani kiri way maxay ilaah baa igu dhex jiro amisay طب هدي إله يقول حجري معنا وبهني صلاة وبهني هوكر إله بيقول حجري معنا وش أمسين من وماشي دهان مثلا integrated إله سبحانه وتعالى يقول حجري ماشي المركب يجا مركب نين كان سيدان أكتود وحكي أحباس الشيخ الإسلام تايت الكاسوتا قال هذا كلا مسلمين تنأكتود وكفر مجرمين وقتل ويوحي لمد وحكروا هذا واحد سوف فهمني لبض طريقه إنه صاقله الطريقة التيجانية الطريقة الرفاعية الطريقة النقشبندية وكجرا وحكمتها كافة طرق الصوفية ودنب ولا سودوية النقشبندية إذا سود الاستاغن هذه ما سيجارة وقهضا وحولي هاي فتاوي هذه أتربضا وشاذة فتاوي وحاوها الرأي مسألة التحايل في الدين مركز الدين أي مرة يسحيالات تربضا ولذلك مركز ماشا للجوغو waxaa ku badan dadka Yurub jooga mas'alada xeelaysiga ku badan qofkii uu maanta dhan wado raadi oo tooriyaysto ragaasna aad bay u boombooneen maadaama dadka muslimiinta meelahan degan ee minority-ga quyuud fara badan ay saaran tahay waxyaabo badan aad dhacsan karin markuu ku yiraahdo way banaan tahay tan mushkilad male waa isdhaafin kartaa ha taxayul fi diin separation ka soo galay taxayul fi diin ha waa iga furan tahay wali kama furna ha وهويدي بقول وين حاسكيس وحاسكيس أما هويدي مركز الله وحاسكي أما وحاسكيس أما هويدي بقول لي تحايل في الدين وحي كم انتهى ما حد ديدي قال بين ولا شيء كراء وكل فكر كيها مثلا إن لفيريو رجل الدمر كإني يسبح بودان ناق أجنبي إلا سلامي كرأته العادي بكتها بل وحي ليل ناق تهدي دونت إذا برفون كسمر ستي تقول عطر اسكبوا حسي أو قوام بيحي كرتا حتى نيجي تدوس هذا النقان وبيحي كرتا وهذا أمي سيمي كمان إذا مركب
dumarkii markii hore ay shahwa adduun ay haysay noocan ma intii intay televisionka soo istaagtay lahayd ana kullama ara imra'a mutanaqiba ashma'iz minha naag wajhi daboolan markaan arko aniga dhan waa labalabaya qiyaaqsiba ay qabta mid lahayd oo kale markay fakarkaan maqasho kuwii xijaabka lagu kari waayo markay fakarkaan ay maqlaan wiilka dhalinyarada ah lagu kari waayo war masjidka war dhowr sano markii la yiraahdo gabadha waa dhex boodi kartaa gacantaad qabsan kartaa waa la seexan kartaa sanburba ku bana markuu maqlo waa meelaha ay ka soo galaan yaryarka yurubna aad bay ugu badan yihiin Denmarkan xoog bay ku leeyihiin nimankan waxay fiqi ahaan marka la joogo ilmaha yaryar waa la beecin karaa bay qabaan la suuq geyn karaa waa la gadan karaa waxay kale leeyihiin zakadan laga hadlayo ay diintu ay sheegtay waa dahab iyo qalin ama lacagahan hadda kronka iyo dollarka iyo eurowga iyo waxaan zakawa kuma waajibto maxay yeelay asal ahaan diintu markay zaka ka hadlayso waxay ka hadashay adahab wal fidda waxay ka hadashay gold and silver labada un baa laga hadlay dahab iyo qalin baa laga hadlay lacagta laakiin waxaan dadku ay wataan oo eeraha iyo waxaan xukuma waajibaan bay leeyihiin waxay baneeyaan ribada in la cuno bikulli anwaaciha ولذلك فتاوى يوروب عاد أركيس مرق أركي مالها هذه الربا بنانيس كما داير محابي كل جوجان علماء وجوجان وهي أمسيين وكالقفك إنه تكنكر السوق النجاسة إسكت نجاسة سن وأنا قبي سن وميران وبجنوب ومعركة كذي سقبوا تكنكر بلي نمان كم والله جران كرا قفك أقريه تاريخ ذا وأن عاو إدين دير لها جوجل كي مالها information كلا جهلا دي بعد تدا أي مسلمين تأوجيس المركة أمريكا للجوجي كندا حتى في تنتهي سميعه حكمده قبلة أو ماشي اللي تكذو باي دايركشن كده وحي بدلين إلا يسقاشن ديجري وتقولن كنت سقاشن ديجري وتكبح دع الكلاد وجهي سا ما الكلاد وحي أقولادين مركا إلا سقاشن ديجري المركا الله وعنكره سقاشن ديجري مركا الله يلعن هذا قبل وجيد مركا لو سعطاي وعكس قبلة المسلمين ملك سهر جدو waxay kala waxay leeyihiin dhulku Soomaha kurawiye soo sida kubadda kala ma mar haduu sida yahay uu yahay nis Portugaaliye uu yahay sida Portugalka kala saa uu yahay mushkilad ma in xagga loo jeesto saasay leeyihiin Lubnaan marka la joogo jamaacad gaar ay leeyihiin oo iyagu meel kale ma aadaan waxay ku tukadaan jamaacadka masaajida muslimiinta ay ku tukadaan laakiin marka jamaacadka muslimiinta ay salaada dhameeyaan kadib ay iyagu sameystaan dad farbadan khiyaara aan naqaan بأي روض كل تجاو سوماليا ركلا يسوق جرا. قلنا مركب وهي عام كيه أي مدى مساجد إلا لجماعة أمسو إمام واي خلا وردت كان إسكي إلالي إمام كي ور كان ولا جرعة بكتة لقديها ويجرعنا أي مدى وحيسكت ضيان حتى مالها يجوجان وكلام مركب يسوق جلان ماشي يحوك كل يهين واحد دون المركب يلان مساجدنا رنتي يا أبوك بدن بيمركو رنتي كأبورا يعني وحنا القياسي كريم هذا بقى مر هذا نسلو كان قلدا يا محيين أفكارته ده هالكيف الرعد كويسة محا جذورها كو المذهب الأشعري قضايات فرق بدن صفات كالحريرة وواحد بدن أنا نكفجين كي جهامي جاها ندول بنسود الاستاذ الأشعرية ونسود الاستاذ كلمة درس هاي في القضاء كلمة درس هاي عقيدة جاه المرجئة جهمية كلام ديهين قضايا الإيمان مركل الجو طرق الصوفية بأنواعها التيجانية الرفاعية النقشبندية ويكون جرا عقيدة الجفر أيضا باطنية أهنا ويكون جرا هي أفكار فربضان ورنتي أنت والله قلت لك الإسلام كمركا لقوم الجحابي وحنا شكي كجرين سيدا قديانية أنو أغاني هنا يتهاي financial supported من إيدا للدعمية ماليا والله تاغيره وقوات ايادي خارجيه او تاغيرتان waxa shaki ku jirin axbaashuna dad marka meel kale wax ka soo galay inay yihiin waad garan kartaan macnaha iyo wixii lamida sidaad garan kartaan wuxuu mawsuucada ay tilmaamaysa Abdulqaadir Suufi nin dhihi jiray hadana Spain meesha Britania dadka joogay waxay sameeyeen wal ogyahay firqadan halkee marka laga helaa waxay aad iyo ugu baahsan yihiin Lubnaan yani طريقان عادي هاي والله يعني ادي حق بدين مدارس فربضان بكليهن اسكولة من عمادة فربضان بكليهن وانا وحال الشاقة حتى مدارس إيجا إليهن اسمها إيجا قول لسان مباني الحكومة أي مدى إلا لها ساو مدى دارة من تأكليهن حباش تقف في لبنان تجي وحاك الله أسي دار قف كسو إيجا أشقيا إيجا كترسان شقضة وقبانا راتب أم مشاه روحو قادنا كبضان ضدك الانتقاضا لهاي
إلا وحال الرباط إلا صد بالله صد وصد وحيل إذاعة وقارة إليه مركب لبنان للجوجو وأفكارته فافسة هذا إذاعي ويبقى فين وحيليهن ساتلايت بيليه قلنا المركب وحيكون بديهن وكله يوروب أمريكا وأقرن كندا وحي كدقان أستراليا سويدن تان انت ايدين جرت 3 ساعة دنمارك وتن وابا حزب قاري بليهن وحي لمده وانتنا فتاودي هاي in xagga iyo waqooyiga loo tukadana oo sheekooda fatwoodan weli ku dhigay meeshii marka tagaan marka noocan ma meel kasta oo aad maaragtay Lubnaaniyiin aad ku aragtid waxaad badana u hor iyo horaanba waxaad baartaa aad ogaataa ninkan maxabashi baa bismaa ilaahay amarkii ninka ba umada ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka fidnada bilaad kul oo bari uu kiciyay imida hadda yar uu ka kicinay markay badan tahay waxyaabaha waxa cajiib leh oo la ii sheegay meelaha qaar kood markaan muxaadaro u tagnay Yurub dumar fara badan oo dumarkii muslimaadka oo Soomaalida ahaa oo galay groupka galay wax kalena maaha umadu noocan ma waxay marka riba ma qaadan kartay gabadha haysa asturto wixii baa dadku waxay dareemeen culays bay dareemeen ilaa qofkii markii ilaahay iimaanka uu ka qaado ama iimaankiisu marka uu noocan ma aanu fadhiyin wuxuu marba raadina waxa la wixii marka maxaa u sahlanaan karo raadinaya marka waxay arkayaan fataawi ay rabaan guri ma u baahanta ha qaado okay ikhtilaad ha nina wada digi karaan ha musaafaxadi xukuma jamna nooc ma taxaal Soomaa dawladda Soomaa waxa doonto u sheeg mushkiladna marba waxaan hadda dan ku gaaraysid qofka markuu waxa arka Soomaa najaastan waxaan markuu waxaas u arka qof kasto hawaraac wuxuu magac islaam ay wataan ninka ku hor fadhiyana qala ta'ala wa qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ulay ninka hor fadhiyo ilaa madhab Shaafici ban ku fatwoonaya markuu hor fadhiyo kulli aqeedada waa saa kulli qofka marka cilmigiisu aan saa u si runtii ahayn ama ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuun aan la doonin si sahlan marka u raacaya marka dad fara badan meesha marka galay gunaanadka hadalka waxaan dhiila qoladaas oo qolalunsan si muuqata bay islaamka run ahaantii ay ugu nisba sheegtaan laakiin run ahaantii waa dad islaamka burburinaya waxayna ka faa'iideysteen dhibaatooyinkii dhaqaale ee ku Lubnaan kadib markii xarbigii ama dagaalkii sokeeyay uu dadka u dhaxal siiyay ceyr iyo jahli wixii la mid ah qolada afkaartooda waad garateen oo noocan ma culamaa muslimiin aad iyo aad bay ula dagaalameen si Sheekh Nasruddin Albani aad buu qolada ula dagaalamay Sheekh Samahat Sheikh Abdul Aziz bin Baz fatwadiisii ahay 23 kun 92 ama 2392 wala jeeda ee soo baxday 30kii bishii 10 kun 460 wuxuu leeyahay sheekha kalaati sida soo socod in طائفة الأحباشي طائفة ضالة قالوا مسمبيل ورئيس عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله إن كان مسؤول كوهنا وأن لقوا يقان لنسنان يقلع فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم من الاستماع لهم أو قبول ما يقولون وأنا واجب إلا قويو عقيدتنا لا ضفيرو لا ديدو دad kale looga digay inay dhageystaan ama wax ay sheegaan ay qaataan mar hadaad fahamtay labada firqo aad iyo aad kugu dhow gaar ahaan dadkan Yurub jooga siiba Scandinavia meelaha inaan ka fogeyn iyaga iyo qadiyaaniyada waa inaad aad iyo aad uga digtoonaata wax kasto lagu sheegan waa inaan qaadan annagana run ahaantii bulsho ahaan markaan hoos u soo dhaadhaco Soomaali ahaan dadka inay milmaan aan fakar walba u dhagraariciyaan dadka ay u sahlan tahay baan markii isagoo naqnaqle ku soo galaya wax uu soo qaatay markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga baqno horta waxa baro ogow aqoontaada diinigana kobci si aad marka uga badbaadid fitantan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna an yuthabbitana 'ala al-haqqi wa an yunjina min kayd al-kuffari wa ila huna billahi tawfiq